السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلامي دمانتين ابو ميل walbo caalamka joogtaan waa anigoo walaalkiina Amin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga haddaad ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo labada qof xiriir ka dhaxeeyo oo khilaaf ka batay dhaxdooda ama kala fogaanshahooda batay ama batay dagaalkooda markaan leeyahay labada qof xiriir ka dhaxeeyo xiriirkaas wuxuu noqon karaa wiil iyo walaalkiisa wiil iyo aabihiisa wiil iyo hooyadiisa ama wiil iyo walaashiisa iyo nin iyo xaaskiisa sidoo kale wuxuu noqon karaa labada qof mustaqbal isku yeelan rabo marka xiriirka laakiin anaga marka xiriir aan maqlano waxaa isla markii u qaadanaa labada qof isjecel xataa aanan wali isguursanin marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xiriirahaas oo dhan hadaa rabteen khilaafkiina inuu yaraado saddex shay ayaa idin kicili rabaa hadaad iska dhaaftaan saddexdaas shay waxaa idin rajeynayaa inuu xiriirkiina waxyaalahaas dhan aan soo sheegay inuu ka yaraan doono aanna ku rajaweynahay oo ku hamweynahay inuu xiriirkiina si fiicnaado midda koowaad ay idinka celin rabo waxay tahay inaadan qofka been aan u sheegin waayo beenta hadduu bato waxaa meesha soo galayso aaminad darada haddii aaminad daro meeshana soo gashone xiriirkiina ayaa ku burburayo waayo xiriirka wuxuu ku dhisan yahay tiirka aaminaada meesha xiriirka hadduu aaminaad lahaynin xiriirkaas ma sii jiri doono midda labaadna waa inaad iska ilaalisaa inaad qof aadan balan u qaadid balantaasoo ah aadan ku soo baxi karin waayo sidoo kale hadduu balan badan aad qaadid aadan oofinaynin waxaa noqonaysaa beenlo haddaad noqotidna isla meeshii ayay kusoo laabanaysaa aaminaadii ayaa meesha ka bixayso xiriirkiinana meesha ayuu ku burburayaa sidoo kale midda saddexaadna waa inaadan qofka aadan khiyaanin si walba u noqoto haddaa qofka aad ka daashay isku day inaad ka codsatid waqti yar aad ku nasato laakiin ha isku daynin inaad qofka khiyaanid waayo khiyaanada waxay burburisaa labada qof xiriirka ka dhaxeeyaan xiriirkooda halahaas ayaa idin rajeynaya haddaad iska dhaaftaan inuu xiriirkiina si fiicnaado inta aan muuqaalka le wada kulmi doono waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo